waxaanu halkan u jeedinaynaa bulshada reer Caarigaabo qodobo kooban oo ka soo baxay shirkii guddida nabadgelyada ee saaka aanu galnay kaasoo daaran shaqaaqadii shalay toole ka dhacday magaalada Caarigaabo ugu horreyn waxaan tacsiin u diraynaa eheladii iyo qoysaskii ay ka baxeen dadkii ku dhintay waxaan leenahay samir iyo iimaan saadiq Allah inaga siiyo waxay ahayd geeri xanuun badan mushkilad u dhacday si ugubaho bulshada reer Caarigaabo ay ka wada dhagaa ka wada taagtay waan ka tacsiinaynaa cid walba ay taabatay waxaan ilaahay ka baryaynaa dadka inuu ilaahay u naxariisto marka labaad magaalada Caarigaabo oo xaaladeedu hadda degan tahay dadka saska lagu beeray dadkan reer Caarigaabo oo dad ood wadaaga ehel wadaaga dad isku mid ah oo aan hayb kala lahayn waxaan u sheegaynaa inay istejiyaan dhibaato hadeer ku soo socotaan ognahayna ma jirto shaqaaqada dhacday waxaan lambar 1 ciidanka kala duwan farayna oo waajib ku ah muddo gaaban oo 24 saacadood gudahooda in wax lagaga qabto dadkii shaarka ciidanka qaranka sheeganayay ee dhibaatada qaybta ka waxaan sidoo kale adkeynaynaa in dhibaatada wixii bilaabayna la helo oo sida ugu dhaqsaa badan ay gacanta ciidanka u soo gasho dadka wixii khasaare ka soo gaaray waxaan u saarnay guddi qiimaysa oo culimo waxaan rajaynaynaa insha Allah inay qiimeyntooda ku sugaan waxaan sidoo kale xusaynaa dad badan baa wada jirka bulshada Caarigaabo iyo wada noolaanshahooda ku ah cadow ku ah dadkani axda qarameed bay ku wada nool yihiin wixii ay dhigteen ee iyagu dhexdoodu ka dhigteen bay ku wada nool yihiin cid walba cadow ku ah waxaan leenahay meel uga soo wada jeesano dawladnimada cid laga leeyahay ma jirto reerna reeruma dawladeeyo dawladnimada Caarigaabo talaawatiya wada dhisateen way reerna reer marti uga noqon maayo cidna cid marti uga noqon mayso waxaan ballan qaadaynaa in si cadli ah oo Ilaahay nagu og yahay aanu arinta uga hawlgalayno wix allaala wixii ku lug yeeshana aanu talaabo sharci ka qaadi doonaa hadii Ilaahay waxaan mar labaad ku celinaynaa erayada media ka baxay ee wax magaratadu shubaysay kuwa huwanta sheegaya ee doonaya magaalada inay cid ka sheegtaan waxaan u cadeynaynaa huwantu inay tahay cidda nabadgelyada Caarigaabo cadowga ku aba huwana cidda maalin walba jabisa ee magaalada gudaheeda isku dayda inay wax ku dishaaba huwana bulshadan wada nool cidda ku soo duusha huwana kuwaas reer Caarigaabo inay meel uga soo wada jeestaan laga raba axad qarameedka aan leenahay waxa weeye beeshii ku gafta inay beelaha kale meel uga wada jeestaan tiibaan ku taaganahay tiibaynu yeelaynaa hadii Allah idmo cid walba dhibaatadaasi gaadhay waan ka tacsiinaynaa anigu ma doonayo inaan u jawaabno mas'uuliyiinta ama dadiyowga doonaya inay dabka sii horiyaan ee meelaha ka hadlay halku doonaba ka hadlay laakiin waxaan baaraynaa dadkani nabad bay go'aansadeen nabadgelyayna ku wada nool yihiin inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kullu nafsin daa'iqatul maut waxaan aad uga xumahay arrintan dhacday shalay wadada reer Caarigaabo ay ku dhintay iyadoo oo geeridu ay xaq tahay qadar rabbi ku timi
laakiin si qaab daran ay u dhacday dadkii halkaa ku dhintay allah u naxariisto jannadana allah ka waraabiyo ehelkoodiina samir iyo iimaan iyo dhammaan dadka reer Cergaabo allah ka siiyo taa markaan ka gudbo anigu waan maqnaa haddaan u yimi guddida nabadgelyada shir ku jirta meel fiican bay hawsha marinayeen go-aamo wanaagsanna way qaateen go-aamadaasina inay socdaan ayaan rajaynaynaa insha allah wixii khalad galayna khaladkooda in lagu qaado wixii saxanina ay saxan yihiin qadiyaddaa dhacdayna aada iyo aada baan uga xumahay Cergaabo waa caylad gerigeeduba waa usrad waa reer qof waliba qof buu ehel yihiin waa caylad keliya uma arko dad qabaa'il oo isu yimiina yihiin laakiin dad caylada oo ilaahay meesha ku abuuray oo hal family aanu arkaynayay ciddii khalad gashana in laga qabtaa weeye horeyn horta waxaan tacsi u dirayaa naf iyo maalba wixii shalay Cergaabo ka dhacay waxaan ka tacsiyeynaya dadkii naga dhintay afarta qof ka kooban ee maanta meydkoodii inoo yaalayno aaskooda diyaarinayno taa waxaan uga tacsiyeynayaa dhammaan Cergaabo waxaan uga tacsiyeynayaa ehelkii iyo qaraabada ay ka soo jeedeen ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo hawshaasi shalayto Cergaabo ka dhacday ciidamada kala duwan wixii laga qabtayna laga qabay wixii kalena 24 saac ee barasaabku sheegay in jawaab lagaga bixiyo ayaanu rajaynaynaa ku rajooy taanu nahay ciidan waxa kale uga faa'iideysanayaa ciidanka booliiska ee ka hawlgelaya maanta Cergaabo dhexdiisa bandooba saaran magaalada bandoodaasi amar guud bay ahayd ama xilliga aynu ku jirnaa ama halka aynu joogno xaaladda aynu ku suganay baana ina fartay madaxda inaga sarreysana oo ina fartay sideeda loo fulinayaa wixii dhaqaaqa waxna idin lahayd gacanta ku qabanaysan taas baa farantiin ciidanka booliiskana taasna ciidanka booliiskana leh dadweynaha waxaan leeyahay wixii dhacay sida dhaqsaha baynu wax uga qabanaynaa gacanta lagula qabta nabadgelyada aynu doonay ugu horeyn waxaan u taxsiyeynaa dadkii shalay sida xaqdarrada loogu laayay magaaladan Cergaabo oo tiradoodu ay ka koobnayd 4 qof waxaan kaloo cambaaraynaynaa dhacdadu siday u dhacday iyo foolxumadii ay lahayd ee u muuqanaysay waxaan ciidamada biliiska iyo militariga ku waajiba in dadkii dunuubta galay ama shicib ha ahaadeen ama ciidamo ha ahaadeen lasoo qaqabto dhammaantood sharcigana la hor keeno wixii maxkamadda ciidamada ay waajib u yeelashaana la geeyo wixii maxkamadaha caadiga kiiskooda noqdana la keeno si loo mariyo oo looga abaalmariyo wixii ay geysteen magaaladu iyo gobolka Sanaag iyo u muuqan meel aan dawladda ka jirin oo fawda waayo waxa lagu laayaa dad magaalada bartankeeda iyadoo cidna laga gabanayn ciidamadii ay buuxaan ay daawanayaan ay joogaan baa qof xaqdarre la iskaga dilaya wax dambi aan gelin lana soo qaban maayo taas waxay keenaysaa tii shalay dhacdo oo kale marka dambe iyo mid ka sii weyn waxaa la yidhi belaayadu dabal qabto ma lehe waxay leedahay madax la qabtay leedahay marka waxaa waajiba in dowladnimada la muujiyo oo sharcigu uu sarreeyo oo cadaaladdu ay sarreyso oo dadka cadaaladda deeqday cadaaladda markay dadku arkaan dhammaan way qancayaan laakiin dadku hadday arkaan in la isu xoog sheeganayo qabiil jiro awoodi jirto hub jiro waxna aan laga qabanayn marka way marka la isku baabaayo weeyaan marka ciidamada waxaan leenahay war tallaabo qaada oo dadka dembiyada gelaya
suuragal maaha in dadku kala dhuuntaan oo habeenkii nin walba ciidanka haysto ama uu gohu wado ama uu guriga safiid ku xiroodo bando magaalada ay noqoto oo dadkii mas-uuliyiinta ahaa iyo dadkii acyaanta ahaa oo dhan ay bagayaan oo dhuumanayaan reer kasta ha ahaadaane marka waxaan kusoo koobayaa dadkaana ilaahay ha u naxariisto waa tacsi oo loo taxsiinayo dadkii dhintay iyo kuwa dhaawaca aada iyo aada iyo aad baa uga xunahay guddi ahaan iyo shaksi ahaan iyo guddi ahaanba guddoomiyuhu iyo barasaabka iyo ugu horeeyaan iyo guddoomiye maayirku aada iyo aad baan uga xunahay ragga halka fadhiya oo dhan aada iyo aad baa noo dabaqday shaqadeediina waa lagu jiraa waxbaa laga qabanayaa waa shaqada intuu leeya buu ka qabanayaa dadkuna sidaa loogu deganaado insha allahu kariim hadalku wuxuu ku kooban yahay aanu kusoo koobaynaa wixii waajib waxaan tacsi u dirayaa tiiraanya leh dhacdadii ka dhacday gobolka Sanaag ee ku dhimatay 4 qof 5 qofna ku dhaawacantay shaqaaqadaasoo wax ka qabadkeedii sida mas'uuliyiinta ugu horeysa ay sheegtay lagu hawl jiro in wax laga qabto waxaan leeyahay bulshada reer Ceergaabo ilaahay baa qordari waa qadar wixii ka dhacayna wax qabadkeeda baa lagu jiraa inay isteeshiso oo samirto cidda dhibtaas ku dhacday iyo culayskaas ku dhacday dadka kale ee hurinaya ee wax kuuri dhibta kale ka wada dhinac kastaba ha joogeene waxaan leeyahay Ceergaabo waa nabad bay ku soo nooleedintaa marxalad ka adag bay ka soo gudubtay insha Allah wixii dambiga curiyay wixii kiiska shaqaaqada bilaabay iyo wixii dhibtaasi loo tirinayay laga eegayoba wax qabad baa laga jiraa waana talaabo laga qaadayaa waxa la amray afar ka soo socday wax laga soo qaado mas'uuliyiinta ciidanka iyo cidii kale shicib iyo ciidan ba cidii ka qayb qaadatay arinta ka waxa talaabo laga qaadayaa waa lagu hawl jiraa dadweynaha waxaan leeyahay hal samro hal istishiyo qawaarida iyo baraabuwasyada sida hawliga sharci darrada ay muraada diir kala haystana ee ku dhashay beer soolkana waxaan leeyahay talaabo laga qaadi doonaa iyagana